عثمان شيخ علي أخوياهانك رير UK إسلا مركان كتاغا أفاينك بنادريغا ولكن كسو دواو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan idinkaga mahadcelinaa akhyaarta sharafta leh dhalinyarada iyo aqoonyahanada isugu jira reer Banaadiriga ka soo qayb galay xafladan marka labaad waxaan hambalyo aan la soo koobi karin halkan ugu jeedinaa bahweynta Banaadiriga ama BB Banaadir oo runtii 7 sano jirsatay hambalyo ayaan idin leenahay dhammaanteena waana arrin lagu farxo in insha Allah taala urur noocan oo kale ah insha Allah inuu ilaahay inoo badiyo oo reer Banaadiriga matala waxaan rajaynayaa insha Allah taala intaan ka badan inay ayaga laftirkooda ay qaban doonaan gudoomiyaha intii 7 sano la soo shaqeysay xubnaha ka ah golahan qiimaha iyo qayaal leh aan xasuusto muddo 7 sano ay soo shaqeynayeen oo wax badan ay bulshadooda iyo bulshooyinka Soomaaliyeed iyo bulshada reer Banaadirba ay aad iyo aad kaalin weyn ay ka geysteen marka waa idinku hambalyeynaa insha Allah waxaana idinkula dardaarmaa insha Allah inaad hawsha aad 7 sano aad soo qabateen sanadka dambe sanadka 8 iyo 9 iyo 10 insha Allah taala inay noqoto wax intii hore aad qabateen ka badan biidnillah anagana haddaan nahay waxgaradka UK jooga Banaadiriga insha Allah taala hiili hoob ayaa idin la garab taaganahay tan xigta walaalaha waxaan aad aan idinku boorinaa khaasatan inta ku abtirsata beelaha Banaadiriga ama qoomiyadda reer Banaadiriga markaan ka soo tagno BB Banaadir waxaa jira dhaqdhaqaaq badan ayaa wadanka gudihiisa ka socda sida walaalaheena hore u sheegeen sida Maxamed Baafadal iyo Shariif kaba ay hore u sheegeen waxaan rajaynaynaa biidnillah inaan arrimahaas aan qayb ka noqono aan ka muuqano aniga cismaan ahaan mar walba sida aad badankiin ay taqaanaan waxaan mar walba aan u taaganahay qadiyadda Banaadiriga ama wax walba oo horumarka Banaadiriga meel walba oo goob walba iyo waqti kastaba oo loogu horaay ama wax loogu qabanayo inaan ka qayb qaato marka insha Allah taala waxaan rajaynaa anaga waxaan leenahay dhalinyaro badan aan leenahay aqoonyahan badan aan leenahay waxgarad badan aan leenahay waagii dawladii hore Maxamed Siyaad Bare burburtay 1990kii waxaan ahayn dad dawladda ka muuqdo marka insha Allah taala ilaahay waxaan ka baryaa oo idinkan aan aan idinka codsanaa in aan sidii nologu yaqiinay oo awooyaasheen iyo aabayaasheen iyo jiilkii anaga aan ka soo farcanay sidii ay ahaan jireen oo wadadii ay ku socdeen in anaga maanta aan bedelno ama kuwa naga sii dambeeyay in ay sii bedelaan waxaan rajaynaynaa haddii adiga aadan ismuujinin oo adiga aadan wixii oo wadankaas Soomaaliya qaybta aad ka leedahay aadan runtii aadan ka qayb qaadanin ama aadan raadsanin xoog iyo xeeladba cid maanta oo wax ku qabanayso oo in saxan lagugu soo qaado oo sida hadiyad oo kale lagugu keenayo ma jiro marka waxaan idinkula talin lahaa ama kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba oo anaga aan ka mid nahay inaan u istaagno qadiyadeena Banaadiriga dhibaatooyin badan ayaa jiro 4.5 sida hore loogu dhawaajiyaa jiro waxaa iman doono doorashooyin ayaa soo dhow oo sanadkan iyo 2020 ama 2020 ama 2020 marka waxaan rabnaa inaan u sii diyaar garoobno shirar badan ayaa mar walba UK ka dhaco odayaasha ay qayb ka yihiin dhalinyarada qayb ka yihiin waa in connection uu hadda kadib insha Allah taala la sameeyaa BB Banaadir waxaan rajaynayaa ay laftirkooda ka codsanaa inay mar walba kaalintaas ayagana ay hore ugu qayb gali jireen in haddana insha Allah ay sii laba jibaaraan marka ugu dambaysan waxaan kusoo gabagabeynaa waxaan baaq u diraynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaan nahay aqoonyahanka ama waxgaradka ku nool UK matala qoomiyadda Banaadiriga
dowladda runtii marka aad fiiriso taageerada inta ugu badan oo dowladda ay la taageero waxaa ugu badan dadka reer banaadiriga sababta ay u taageerayaan waxa waaye wax kale oo ka maqan ma jiro waxa ka maqan waxa waaye waa dowladnimo iyo nabad iyo nolol oo heelheyska ay dowladda ay ku socoto uu yahay annagana labadaasaan naga maqan runtii inaan noolaano oo nabad aan helno iyo xuquuqdeen inaan helno marka insha allahu tacaala dowladda waxaan kula dardaarmaynaa inay insha allahu tacaala xuquuqda ay dadka reer banaadiriga ay ku leeyihiin dowladdan iyo dowladaha kale oo soo socdaba inay insha allahu tacaala xuquuqdooda ay insha allahu tacaala ay qaybtooda ay ka siin doonaan annagana waxaana laga rabaa insha allahu tacaala inaan dadaalkeeda aan muujino dowladdan waan taageersanahay biidnillah insha allahu tacaala dowladdii timaado oo waddankaas dowlad ka noqoto oo maamulka waddankaas mas-uulka ana waan la shaqaynaynaa annaga awal waxaan ahayn dad nabadda jecel dad xadaarad leh dad ilbaxnimo leh dad aqoon-yahanaan nahay dadkii waddanka runtii caasimadda laga soo gaaray oo maanta dad kale iska sheeganaya laakiin runtii annaga waxa noo muuqdo ayaa markhaati noo ah oo jiilkeena iyo guryaha aan ku leenahay iyo meelaha aan ka degannahay ayaa wax walba insha allahu tacaala markhaati noo ah marka insha allah aad iyo aad ayaa mahadsantihiin mar labaad waxaan hambali u soo jeedinaa walaalaha isxilqaame ee b b banaadir waxaan idin leeyahay guul insha allahu tacaala dhammaan banaadiriga meel joogaan waxaan idin leeyahay guul asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu